Kulanti wanaagsan daawadayaal. Waxaan maanta soo qaadan doonaa dhacdo la yaab leh oo sanadkan ka dhacday Xajka. Yay ku dhacday dhacdadan? Xaajiyad u dhalatay dalka Tunisia oo hal sano indho la'ayd ayaa uu dareenkeedu aragga u soo noqday xilli ay ku guda jirtay gudashada Xajka ee sanadkan. Xaajadan fadliga Alle araggu ugu soo noqday ayaa la sheegay in markii ay xujaydu taagnaayeen buurta Carafa ay si adag ugu celcelinaysay duco ay Alle kaga baryayso in uu indho la'aanta ka dulqaado, iyada oo weliba aaminsan in Alle ka aqbali doono ducadeeda. Xaajiyo Nafiso Al-Qarmazi, oo 70 jir ah, waxa ay ka mid ahayd dadkii sanadkan ka soo xajay dalkaasi Tunisia muddo hadda laga joogo hal sano iyo badh, ayaa ay indho beeshay kadib markii uu si kedis ah falliga ugu dhuftay. Muddadaasna waxa ay ahayd indho la'aan buuxda oo aanay haba yaraatee xitaa arki karin waxa hareeraheeda ka socda. Nasiib wanaag, Xaajiyo Nafisa waxa ay ka mid noqotay dadkii sanadkan dalkeeda ka soo xajay, waxaana la xaqiijiyay in markii ay xujaydu istaagnaayeen buurta Carafa in ay maalintaasi oo dhan ay si khushuuc leh ugu celcelinaysay ducada ay Alle kaga baryayso in uu aragga u soo celiyo. Nasiib wanaag, Xaajiyo Nafisa waxa ay buurtii ka soo dhaqaaqday iyada oo Alle ka aqbalay ducadii, oo si buuxda indhaheeda u arki karaan wax kasta. Dadkii la socday iyo dhammaan dadkii ka ag dhowaa ee ogaa ama dareensanaa in ay indho la'aan ladahay waxa ay yaab u qaadeen ku noqotay markii ay arkeen xaajiyada oo inta ay ka marantay wiilal ay dhashay oo hagayay, indhaheeda miciinsatay, keligeedna si xor ah u socotay. Xaajiyo Nafisa, oo hooyo u ah 3 hablood iyo 2 wiil, ayaa iyada oo ka waramaysa xaalkeeda mucjisada Alle ku jirto waxa ay tiri: "Waa markii ugu horreysay ee aan Xajka yimaado tan iyo markii aan caga dhigtay dhulka Sacuudiga. Waxa aan yaqiinsanaa in Rabbi ii rumayn doono rajadayda ah in araggii markii labaad ii soo noqdo." Xaajiyo Nafisa, oo qisadeeda dad badan xiiseynayaan, sii wada waxa ay tiri: "Waxa aan ka imid dalkaygii aniga oo u soo safray Sacuudiga si aan Xajka u soo guto. Intii aanu safarka ku jirnay oo dhan waxba ma aanan arkayn. Waxa kaliya ee niyaddayda ku jiray ee aan ku fikirayayna waxa uu ahaa in uu Alle ii suurto geliyo in aan arko goobaha barakeysan iyo gurigii Alle ee Xaramka." Markii aan istaagay buurta Carafa, waxa aan talo saartay Allah Subxaanahu wa Tacaala, si ku celceli ah ayaana u baryay, kumana aanan hungoobin, oo waa uu i aqbalay. Alle, waxa aan ku celcelinayay: Rabbigaygow, waxa aan kuu imi aniga oo rajeynaya in aad araggayga ii soo celiso ee ii aqbal. Warkan uu Cumar Tarikiis ka soo xigtay shabakadda News Arabic waxa uu intaasi ku darayaa in xaajiyadu ay tiri: "Allah waxa uu igu karaameeyay in aan araggayga soo celiyo. Ilaahay baa mahad leh, waanan ugu mahadnaqayaa nimcadaas uu igu siiyay goobtii dhulkii ugu barakeysnaa iyo waqtiyada ugu fadliga badnaa. Mar keliya ayaa aan arkay wax kasta oo hareerahayga ah. Waxa aan arkay
midabadii taalooyinkii goobta ka dhisnaa. Dadkii teendhada aan ku jiray ila wadaagayay ayaa markii ay arkeen mar keliya wada yiri Allahu Akbar, laa ilaaha illa Allah. Kadib markii ay arkeen aniga oo la dhacay sujuudda shukriga aan Alle ugu mahadnaqayo nimcadan, kadib waxaan bilaabay in aan keligay labadayda lugood ku socdo aniga oo xor ah oo wax walibana arkaya, ayay ku tiri Nafisa Alqarmaas. Guud ahaan waxaan intaasi kusoo koobaynaa dhacdadan la yaabka leh iyo qisadan cajiibka ah ee ka dhacday sanadkan xajka. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mar waliba kala soco halkan dhacdooyinka xiisaha geliya